موضوعية fara badan malayna in meeshan looga hadlay xaqiiqdii markaad fiirisidna kuwii ugu dambeeyay waxay ka hadlayeen xal u helidda khilaafaadka macaamilaadka businesska waa waxyaabaha ay u taagan tahay rugta ganacsiga oo ah inay xalliso barnaamijyadaas maadaama dhinaca dowladda aysan jirin maxkamad business affairs macnaha aysan jirin oo waxaan anaga aad isugu dayna inaan macnaha advocacy fara badan u samayno oo aan xoojino mu'tamarkan oo kaleetana aad iyo aad macnaha u kaalmayno ama u kaaba in barnaamijkaas ka hadalkiisa iyo maxaan ku dhahaa dhaqangelintiisa macnaha ay soo degdegto doctorka ugu dambeeya soo sheegaya aad ugu mahadsan yahay midda kale waxa waaye aan rabay inaan bogaadiyo nidaamka loo soo jeediyey casharada laga bixinayo meesha runtii ama wax faham ama ha fahmin dadka anoo kaleeto oo dhinaca shareecada sida uu sheegayay doctorka macnaha ka caagan ama aanan ka saynin xaqiiqdii calaamad su'aal fara badan aan qabo mararka qaarkood aan dhahay hebel soo saa u yiri hebel saas u yiri mararka qaarkood ka imaanayso meeshii aan taagnaa macnaha inay kasoo degayso oo runtii awareness-ka muhiim u yahay markaan usoo noqdo cinwaanka maaliyadda maalgashiga rabaa sorry maalgashiga anaga markaad fiirisid bunuugtayna waa aaday ugu yar tahay maxaan ku dhahaa maalgashiga xaqiiqda looga baahan yahay waddanka markaad fiirisid ilaa ay hadda waxay maalgeliyaan iyo qaabkay u dooranayaan oo ah dad ribix raadis ah laakiin xaqiiqda markaad fiirisid waxaan malaynayaa in sidoo kale laga hadlayay hay-adaha ama sektarada aadka ugu baahan inay ka mid yihiin sektarada wax soo saarka sektarada wax soo saarka markaad fiirisidna ilaa ay hadda waxa laga maalgeliyo inay tahay 2 ilaa 3% inta maalgelinta lagu sameeyay taas waxaan leeyahay in bangigan aadka ugu weyn ee salaam bal inay mar labaad isugu noqdaan sababtan sheega ribix badana ku jiro faa'iido fara badana ku jirta mustaqbalka xaaliyan hadda waxaa laga yaabaa in markaad fiirisid caqabada fara badan ay jiraan laakiin bangiga dabcan tartiibtiisa asaa yaqaano laakiin dhinaca productionka markaad ka fiirisid iyo market revenue kasoo geli karo profitka kasoo geli karo xaqiiqda waxaa la odorsaa adduunka oo shirkado waaweyn oo maxaan ku dhaha consultants ay mar hore macnaha sheegeen sida McKinsey oo kaleeto in adduunka uu ku yaraanayo maadooyinka proteinka ka yimaado organic ama xoolaha ama beeraha ama malaayga ka yimaado anagana markaad fiirisid aadan qani ugu nahay barnaamijkaas waxa ka maqan markaad fiirisid barnaamijkaas waa commercialization ilaa ay hadda anaga kama samaynin commercial profit seeker oo sidiisa ah laakiin waxaan hubaa in wadamo fara badan oo aad noo xiiseeyo inay aad u xiiseeyaan sektaradaas maanta aad ka caagantihiin idinka waxaan marka ku boorinaa barnaamijkan khaasatan salaam Somali Bank inay bal mar labaad ay ku noqoto ma aha in laga qaato waxaan dhahaa markasta ha laga dhageysto in macnaha mar labaad macnaha aad ka fikirtaan sidee looga samayn karaa commercial profit fara badan leh suuqa waxaan naqaanaa miiso dhawaatay suuqa waxaan naqaanaa wadamada aadka u xiiseeya waxaa kamid ah Turkida waxay ka hadlaan waxyaabahan maqlay waxaa kamid ah sunflower keligeed markaad fiirisid waxa laga faa'iidi karo waa naqaanaa dagaalka hadda Ukraine markuu dhacay caqabada ka timid dhinaca saliid waa naqaanaa dhul beereedkeena waa naqaanaa salaama banki dhinaca si u sameeyay maxaan ku dhahaa businesskan waa caqabada fara badan oo dadka la leeyihiin shirkado kale shirkado kale leeyihiin waxaan malaynayaa inay ka yar tahay caqabadahooda marka taas waxaan aad macnaa u leeyahay fursad raba inaan ka faa'iideysto sectorkaas maalgelintiisa aadka u yar tahay bal in la fiiriyo ribixiisa mustaqbalka dhexe iyo midka dheer oo xaqiiqdii dhab ay tahay la baari karo waa laga maqloon maalgelinta sideeda kale markaad fiirisid waxaa jira barnaamijyo annaga aan aad u wadno oo ah public private dialogue iyo public private partnership dialogue calaamad su'aal ah jira xaqiiqdeeda way jirtaa oo taariikhu leeyahay laakiin marka laga hadlayo public private partnership oo aan malaynayo in salaama iyo bangiyada kale inay aad ugu baahan yihiin waxaan jeclaan lahay barnaamijkaas in macnaha culaab nagu saartaan sida macnaha u dhaqangelin sababta keenaysana waxay tahay maadaama assetka bangiyadayna ilaa iyo xad markaad u fiirisid waxaan maalgelin ugu baahanna uu aad u yar yahay waxaan malaynayaa taas inay keeni karto kalimaadkan carabiga aniga si fiican u aqaano waxay keeni kartaa partnership xoog badan
in macna lala galo shirkadaha ama wadamada danaynayo in Soomaaliya macna maalgashtaan marka taasna waxaan leeyahay bal salaam marwad isku noqdo sida macna ugu wada shaqeyn lahayn iyo maxaan ku dhahaa maxkamadaas in midda kale waa wax guud ahaaneed injineerka tii uu ka hadlaayo waa waxay furaysaa doodo fara badan ma aha qof inaan naqdinayo ama inaan qof ku raacayo laakiin waxay furaysaa doodo badan isticmaalka in maxaan ku dhahaa teknolojiyada oo calaamad su'aalo fara badan ka jiraan sidoo kale xaqiijinta laftirkeeda annaga maxaan ku dhahaa aan isticmaalayna dollarizationka oo calaamad su'aal fara badan ka jiro in macnaha bunuugteen laftirkeeda ay marad ka fikiraan waa waxyaabaha annaga ay u taaganahay ganacsiga Soomaaliya markaad fiirisid oo xaqiiqdii 2008 hadda sheekhana noo sheegay dhalinteer ma sha Allah bangigaas ma ahayn bangi intuu ku yaal waa qarniyo jir run waay laakiin sababta u dhacay ma ahayn kaliya shoogi dhacay nidaamkay ku shaqeeyana waxay tahay nidaam xaraami ah very simple waa xaraami taas marka waxay keenaysaa in bunuugta nidaamkaas ku dhisan anaga laftirkeena inaan isticmaalina lacagtoodii marka midda kale waxaan leeyahay sidii shilin Soomaali loo soo celi lahaa would be very good oo waxay keeni kartaa aan isleeyahay in waan xalana ku jira waxaan maqli jiray caano qobtan gadaashood la qabo markaas waxaan dhihi jiray ribaadiyahan dhib badan way badaateen wax goorma la qabanaa laakiin xaqiiqda markaad fiirisid waa run in aadan isugu dhiibna dollarization oo maanta markaad fiirisidna caqabada farad ugu waaweyn ay tahay value soo dhacayo iyo asoo suuqaba ka baxayo oo siyaasada fara badan ay ka soo horjeedaan marka aagagas markaad fiirisid waxyaabo aad runtii loogu baahan inaan macnaa isaga soo dhawaano oo intaan hadda isu jirin aad isaga soo dhawaano barnaamijkan waxaan leeyahay bogaadin fara badan Dr. Liban sidoo sheegayna waxaan dhihi lahaa goobta ha loo balaarsado sababta keenaysana waxay tahay cilmi cariiri ma galo ha noqdo maadi ha noqdo maxaan ku dhahaa diimi khaasatan dhinaca diinta markaad na fiirisid aniga waa ka cudur daartaa sida hadda dhahay luqadda carabiga diinta aadan ugu liitaa laakiin markaad dhageysatid nin da'dan jiraan ahay dawladdeynana way ka gaabisay xaqiiqdii inay standard u samayso isticmaalka diinta ku dhaqankeeda ummadana markaad fiirisid waxaa jira jahawareero fara badan taas marka jaanibkaas markaad fiirisid waxay u baahan tahay sida uu sheegayay muxaadarkii ugu dambeeyay in dawladda ay noqoto meesha ugu dhow ay tahay macnaha annaga inaan isticmaalno iyada meeshii annaga influence lagu yeelan lahayd way tirahaa private sectorka asaga macnaha wax walba rangareeyo inaan annaga afkaartaas la nimaadno oo sidii loo keeni lahay xukun ballaaran diimeed oo qof kasta macnaha soo dhaweynayo iyadaysan ka dhaqaaqaynin xaqiiqda iyo asalka diinta uusan ka dhaqaaqayn marka aadan sidoo kale u soo dhaweynaa Dr. Liban arrinka uu sheegay oo runtii aan ku bogaadinayo fikirkaas waxaan sidoo kale jeclaan lahaa salaamo next time insha Allah sanadka saddexaad inuu noqdo shir intaan ka ballaaran oo albaabada u farihin qof kasta rab inuu macna ka soo qeyb galo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.